الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا وصحبه وسلم انت مقعيجي موغالكي تقانو أمد الصومالية ملك استيجوكتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني وإكس كرر الخليفة ديس عثمان قصقون قبل كيلان دقمة بلدويني وعن ربا سدح الرمودين انداها كقادو سدح الرمودين انداها كقادو كو إماتن كي رئيس الوزراء ويمد قبل كيلان قاران دقمة بلدويني booqashadan maanta oo isdaalkan oo burburashan bilood ka hor oo rag badan ku dhamaaday oo cali guudlaabe oo maanta tagay iyo howlgalka oo ciidamada saddexdaas ayaan rabaa inaan ka hadlo waxaan ku hormarayaa ra'iisul wasaaraha arrivalkiisa ra'iisul wasaaraha waa loo helanay waana la sugayay bulshada reer hiiraan iyo waxgaradka reer hiiraan way sugayeen isla markaasi munaasabad qaali ana waa lagu soo dhaweeyay hayeeshee raggii la hadli lahaa oo gobolka ugaashiisa ah oo waxgaradkiisa ah waa laga celiyey ma ayna gelin brotokoolka ra'iisul wasaaraha naftirkiisaana dadka celiyey asagana waxaan aaminsanahay in la yidhi nin hirshabelle la diidi karo ama ra'iisul wasaaraha dhihi karo hana la dhaafiyo in aanan loo soo dayn waxa la geeyey naaga manaabiley oo kuwii manaabileyda ahaa iyo dhalinyaro sportis ah waxgaradkii gobolka hiiraan oo degmadan beledweyne joogay qabaa'iladooda nin ka hadlay ama yacni danta jirta sheegay ma jiro marka taas waa midda ra'iisul wasaaraha cabashadii iyo colaadii hirshabelle loo hayay hadda ayay meel kastiiba meeshii shalay joogtay ay taagan tahay taas waa midda ra'iisul wasaaraha haddaba reer hirshabelle haddii ay ra'iisul wasaaraha ay indhaha ka xireen ra'iisul wasaaraha inaanan dhagaha laga xirin oy baahidii hiiraan iyo cabashadii ay colaad iyo dagaallo iyo ilaahay idinkiis guryo iyo ceelal la gubay inay jirto taasoo horay mas-uulka gobolka oo u sheegay ku soo dhawow ra'iisul wasaare hiiraan oo dagaal ku jiro hiiraan oo abaar ku jiro hiiraan oo ceelashii iyo guryihii dadka shacabka laga gubay waxaan ka qaadaynaa khudbadaas midda guddoomiyaha gobolka oo akhriyey khayr allaha siiyo intaas ayaa wax muhiim ah oo ra'iisul wasaaraha oo qaatay iyo wuxuu ballan qaado gulina soo gaarin ayaa maaragtay arrivalkiisii soo imaatinkiisii ayuu ka faa'iiday nin duqa iyo nin waxgarad ah oo ka hadlay ama loo deeyayna ma jirto taas waa midda ra'iisul wasaaraha okay waxay yahay cali guudlaabe iyo systemka hirshabelle 25 bishii February ayuu qarax dhacay saddex qarax oo u dhaxaysa 12 maalmood sidaan hore idin ku sheegay Xasan Diif iyo qaraxii mataanaha ahaayo gabadha Aamina ay ku dhimatay isbitaalka ay ku dhinteen rag badan oo xildhibaano iyo doctorro iyo ganacsato waaweyn iyo culamaa diin ay ku dhinteen hirshabelle waa joogeen madaxweynaheeda joogay madaxweyne ku-xigeenkiisa joogay gudoomiyihii baarlamaanka joogay golihiisa wasaarada joogay mana ayna booqan mana ayna tegin kamana ayna hadlin waxa intaas noo sii dheer meydkii oo yaallo oo xaafadaha habeen madoob uu qaraxaas dhacay ugu dambeeyey oo xaafadaha wixii meyda loo kala qaaday subaxii doorashay nagu kor qabteen si ciidamadii iyo shacabkii isku dhici tagay intaas doorashada la qabana war meyda yaalla halla kiyaakee ma ayna dhihin taas horey u dhacday miidiyaha ku noqda arka midda labaad maanta ayuu wuxuu tagay isbitaalka cali guudlaabe arrintaas marka waxgaradka gobolka oon anigan hadda idila hadlaa ka mid ah waxaan u aragnay ku dilay kuguna dalli haddana booqashadayda waa kugu diganayaa baan u aragnay ra'iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed oo waxgaratana u sheegaynaa hirshabelle marnana inaan la qaado karin qodobkan waxaan dhagaysa ku shubayaa hadday mar indhaha ka celiyeen dadka ra'iisul wasaaraha cabashadooda in ra'iisul wasaaraha hirshabelle mar rabna ay yiraahdaan nin dhahay kara inaan loo soo dayn howlkii shirka iyo qaladii aan laga mamnuucay oo malaamiley iyo dhalinyaro sportis la geeyey ra'iisul wasaaraha indhahay uga xireen meeshaan laakiin hadda inaan dhagihiisa la xirin ayaan miidiyahana u galay anoo ka turjumaya bulshada gobolka si bug leh oo karaamad leh ayaa loo soo dhaweeyay waxaan ka qabaa dadka inaan u sheego mar labaad in Cabdirashiid laba jeer uu yimid
ninka la yiraahdo ina Cabdigaasna laba jeer uu yimid ninka la yiraahdo Cabdiweli laba jeer buu yimid ninka la yiraahdo asagana Cabdirashiid laba jeer buu yimid dhamaan nimankaas waxay ahaayeen duriyada daarood haddana ra'iisul wasaaraha yimid asagana wuxuu raacayaa jibsintaasuu raacayaa haddaba waxaan rabaa inaan marka Soomaali u sheego Ali Maxamed Geedi iyo Nuur Cadde iyo ninka la yiraahdo Gayre iyo ninka la yiraahdo Roble oo dhamaantood muddadaas 12 sano gaarayso ra'iisul wasaareyaal ku noqnoqonayay sadooda iyo saamigoodana hiiraan ay ku heleen ay ku qaateen hal nin oo isi soo taagay malaha waxaan marka reer hiiraan aaminsan yihiin colaadda jidadka xiran iyo daaqihii jidadka xiran inay ayagu sababeen daaqihii gobolkan oo lahayn xamar inay u fadhiisteen ay broker ka ahaayeen waxaan kaloo u sababaynaa haddana dagaalkan soconaayo oo ciidamada iyo hugantaan faraha badan ay socdaan oo 5 maalmood aanan hadda wax tilaabo la qaadin balse ciidamada weli rugoodii ay fadhiyaan ayaga in ay maaragtay ay sabab u leeyihiin especially Hirshabelle sababtoo ay tahay nimankan hawiyaha gaar ahaan hiraabka iyo hiridiid shacabka u xiran baa waxay tahay Iran gacantiisa qoray in laga ilaaliyo siyaasi adag oo siyaasadda Soomaaliya iyo taariikhda gobolka wax ka sheeg bedeli karo oo sheega kara sadde iyo saamiga oo leeyahay yaanan mas'uuliyad loo magacaabin muddadaas 2 sano sidaas Iran lagu dhaqaayay shacabka reer Iranna waxbay gartaan inta aanan garanna hadda ha ogaato diibli oo sax ah waa Iran gacantiisa qoray in laga ilaaliyo sababtoo ay tahay qaybaha iyo isteediyada hubka ay haystaan Iran lama siin waana ciidankii ugu horeeyay oo qayb ahaan loo dhiso ayuu ciidankan ka mid ahaa hubkay haystaan gobolada ama isteediyada lama siin hubkay haystaan dowladda hadda shaqaynayso iyo dowladihii ka horreeyay qabaa'iladaas waa ka u badan yihiin Iran marka taasaan ku caddaynaya in gacanta Iran in hub laga ilaaliyo taakula dowladeed inaan laga helin dowladda inayna supporter gareyn laakiin waxay moogyihiin Iran inuu xundur yahay oo gobolka kaliya oo Suudiya North kala goyn kara inuu yahay oo siyaasadda Soomaaliya hadday weerarka waa siyaasaddu ay North East Minsoom dhays automatically South West Minsoom political weerarka dad u bedeli kara inay joogaan ayay moogyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh howlgallada raacay oo hadda halkii marayaan howlgallada hadda markaa ma raacay أو كيف صاحب الله أمرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا وصحبه وسلم أنت مقعي مغالك يتغانى أمد الصومالية ملك استيجوكتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني وإكس كرر الخليفة ديس عثمان قصة قبل كيران تكمد بلد ويني وعن ربا سدح الرمودين عندها كقادو سدح الرمودين عندها كقادو كو imaatinki ra'iisul wasaaraha uu ku yimid gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne booqashadan maanta oo isdaalkan oo burburay 5 bilood ka hor oo rag badan ku dhamaaday oo Cali Guudlaabe oo maanta tagay iyo howlgalka oo ciidamada saddexdaas ayaan rabaa inaan ka hadlo waxaan ku hormarayaa ra'iisul wasaaraha arrivalkiisa ra'iisul wasaaraha waa loo helanay waana la sugayay bulshada reer Hiiraan iyo waxgaradka reer Hiiraan way sugayeen isla markaas munaasabad qaali ah oo lagu soo dhaweeyay hay'adaha ragii la hadli lahaa oo gobolka ugaashiisa ah oo waxgaradkiisa ah waa laga celiyay ma ayna gelin بروتوكولك رئيس الوزراء نفتر كيسان دتك عليي أصلاً وحن آمسنا إلا يريو نن هرشبه الذي كرو أما رئيس الوزراء دي كرو حنا لدافيو إن أنا لوسو دين وعلى جاي ناقمنا بالله يكويد بلا بالله داها إيا دليرا سبورتس waxgarad kii gobolka Hiiraan oo degmada Beledweyne joogay qabaa'ilada ninka hadlay
ama yacni danta jirta sheegay ma jiro marka taas waa midda ra-iisul wasaaraha cabashadii iyo colaadii hirshabeelle loo hayay hadda ayay meel kastiiba meeshii shalay joogtay ay taagan tahay taas waa midda ra-iisul wasaaraha haddaba reer hirshabeelle haddii ay ra-iisul wasaaraha ay indhaha ka xidheen ra-iisul wasaaraha inaynan dhagaha laga xidhin oy baahidii hiiraan iyo cabashadii ay colaad iyo dagaallo iyo ilaahay idinkiis guryo iyo ceelal la gubay inay jirto taasoo horay mas-uulka gobolka oo u sheegay ku soo dhawow ra-iisul wasaare hiiraan oo dagaal ku jiro hiiraan oo abaar ku jiro hiiraan oo ceelasha iyo guryihii dadka shacabka laga gubay waxaan ka qaadaynaa khudbadaas middow guddoomiyaha gobolka oo akhriyey khayr allaha siiyo intaas ayaa wax muhiim ah oo ra-iisul wasaaraha oo qaatay iyo wuxuu ballan qaado oo welina soo gaarin ayaa maaragtay arrivalkiisii soo imaatinkiisii ayuu ka faa'iiday nin duqa iyo nin waxgarad ah oo ka hadlay ama loo deeyeyna ma jirto taas waa midda ra-iisul wasaaraha okay waxaa yaaray cali guudlaabay iyo systemka hirshabeelle 25 bishii February ayuu qarax dhacay 3 qarax oo u dhaxaysa 12 maalmood sidaan hore idinku sheegay xasan dhiif iyo qaraxii mataanaha ahaayo gabadha Aamina ay ku dhimatay isbitaalka ay ku dhinteen rag badan oo xildhibaano iyo doctorro iyo ganacsato waaweyn iyo culamaa diin ay ku dhinteen hirshabeelle waa joogeen madaxweynaheeda joogay madaxweyne ku-xigeenkiisa joogay gudoomiyihii baarlamaanka joogay golihiisa wasaarada joogay mana ayna booqan mana ayna tegin kamana ayna hadlin waxa intaas noo sii dheer meydkiioo yaallo oo xaafadaha habeen madoobow qaraxaas dhacay ugu dambeeyey oo xaafadaha wixii meyda loo kala qaaday subaxii doorashay nagu kor qabteen si ciidamadii iyo shacabkii isku dhici tagay intaas doorashada la qabana war meyda yaalla hallaha kiyaakee ma ayna dhihin taas horey u dhacday miidiyaha ku noqda arka midda labaad maanta ayuu wuxuu tagay isbitaalka cali guudlaab arrintaas marka waxgaradka gobolka oon anigan hadda idila hadlaa ka mid ah waxaan u aragnay ku dilay kuguna dalli haddana booqashadayda waa kugu diganayaa baan u aragnay ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed oo waxgaratana u sheegaynaa hirshabeelle marnana inaan la qaado karin qodobkan waxaan dhagaysa ku shubayaa hadday mar indhaha ka celiyeen dadka ra-iisul wasaaraha cabashadooda in ra-iisul wasaaraha hirshabeelle ma rabna ay yidhaahdaan nin dhahay kara inaan loo soo dayn hoolkii shirka iyo qaladii aan laga mamnuucay oo malaamile iyo dhalinyaro sportisa la geeyey ra-iisul wasaaraha indhahay uga xireen meeshaan laakiin hadda inaan dhagihiisa la xirin ayaan miidiyahana u galay anoo ka turjumaya bulshada gobolka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu howlgalladii ay loodi oo macnaha howlgallada raacay markay halkii kala marayaan howlgallada raacay howlgallada waxa sug intaadan taas aada ka bixin ra-iisul wasaaraha aad ugu mahad celinaysaa maadaama uu qiimeeyey gobolkii uu soo booqday macnaha oo aad aan ugu faraxsannahay waa soo dhaweyna taas xoga raacay si xoogaa si bug leh oo karaamad leh ayaa loo soo dhaweey waxaan ka rabaa dadka inaan u sheega mar labaad in cabdirashiid 2 jeer uu yimid ninka la yiraahdo in cabdigaasna 2 jeer uu yimid ninka la yiraahdo cabdiweli 2 jeer buu yimid ninka la yiraahdo asagana cabdirashiid 2 jeer buu yimid dhammaan nimankaas waxay ahaayeen duriyada daarood haddana ra-iisul wasaaraha yimid asagana wuxuu raacayaa jibsintaasuu raacayaa haddaba waxaan rabaa inaan marka Soomaali u sheego علي محمد جدي هي النور عبد هي نيك اللي يرادو غير هي نيك اللي يرادو الروبل ودمان داس لبيه 10 سنه gaarayso ra-iisul wasaarayaal ku noqonayay sadooda iyo saamigoodana hiiraan ay ku heleen ay ku qaateen hal nin oo isi soo taagay malaha waxaan marka reer hiiraan aaminsan yihiin colaada jidadka xiran iyo daaqihii jidadka xiran inay ayagu sababeen daaqihii gobolkan oo lahayn xamar inay u fadhiisteen ay broker ka ahaayeen waxaan kaloo u sababaynaa haddana dagaalkan soconaayo oo ciidamada iyo hugantaan faraha badan leh ay socdaan oo 5 maalmood aanan hadda wax tilaabo la qaadin balse ciidamada weli rugoodii ay fadhiyaan
ayaga in ay maaragtay ay sabab u leeyihiin especially Hirshabelle sababtoo ay tahay nimankan hawiyaha gaar ahaan hiraabka iyo hiridiid shacabka u xiran baa waxay tahay hiiraan gacantiisa qoray in laga ilaaliyo siyaasi adag oo siyaasadda Soomaaliya iyo taariikhda gobolka wax ka sheeg bedeli karo oo sheega kara sadda iyo saamiga oo leeyahay nayaan mas'uuliyad loo magacaabay muddadaas 32 sano sidaas hiiraan lagu dhaqaayay shacabka reer hiiraanna waxbay gartaan inta aanan garanna hadda ha ogaato diibli oo sax ah waa hiiraan gacantiisa qoray in laga ilaaliyo sababtoo ay tahay qaybaha iyo isteedyada hubka ay haystaan hiiraan lama siin waana ciidankii ugu horeeyay oo qayb ahaan loo dhiso ayuu ciidankan ka mid ahaa hubkay haystaan gobolada ama isteedyada lama siin hubkay haystaan dowladda hadda shaqaynayso iyo dowladihii ka horreeyay qabaa'iladaas waa ka u badan yihiin hiiraan marka taasaan ku caddaynaya in gacanta hiiraan in hub laga ilaaliyo taakula dowladeed inaan laga helin dowladda inayna saboortar garayn laakiin waxay moogyihiin hiiraan inuu xungur yahay oo gobolka keliya oo Suudiya North kala goyn kara inuu yahay oo siyaasadda Soomaaliya hadday weerarka siyaasaddu ay North East Minsoom dhahays automatically South West Minsoom political weerarka dad u bedeli kara inay joogaan ayay moogyihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan